mogtahay in haddii ilkaha bakaylaha aan markasta laga jarin inay aad u korayaan heer aysan waxba ka cuni karin waxna ka cabi karin taasoo ugu dambeyntii sababta inay u dhintaan gaajo iyo haraad. sababtu waxay tahay ilkaha bakayluhu ma ahan sida kuwa dadka oo kale, waxay leeyihiin xidid furan taasoo ka dhigaysa in ilkahooda ay si joogta u koraan inta ay nool yihiin. haddaba bakaylaha la dhaqdo badanaa waxay cunaan cunto jilicsan, sidoo kale ilkahooda muddo badan lama jaro. taasina waxay sababtaa in ilkahoodu dheeraadaan heer xitaa ay afkooda xanibaan. markaas si loo badbaadiyo dadka ayaa gacantooda kaga jara, balse waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso yaa ilkaha ka jara bakaylaha duurjoogta ah markay sidan oo kale noqdaan. runtii bakaylaha duurka ku nooli waxay cunaan dhir adag iyo laamo qallafsan taasoo si dabiici u yaraysa korniinka ilkahooda ee xawliga ah. soo layaab maaha daawade. haddaba daawade, adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo xogtan layaabka la hore ma ogeyd? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. hayloobin inaad follow noo saarto youtube-ka iyo facebookka profileka saarana aad subscribe dhahdo.